السلام عليكم أصحاب ميل كستو دنيدا كجوجتان kusoo dhawaada channelkeena galka ciyaaraha dunida qodobada ciyaaraha aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah waxay VAR ka dhigeen aalad ay ku sharciyeysan tahay khiyaanada Real Madrid oo lagu daray inay musuqa ku xalaashato VAR kadib guushii xalay Lionel Messi iyo Antonio Griezmann oo ku dhex dagaalamay tababarka Barcelona ciyaartooy ka tirsan Arsenal oo laga helay fayraska Omicron ka hor kulankii Manchester City walaaca xidigaha Gunners kulanka ciyaarayeen Jamie Carragher oo shaaciyay warwar aynan dadku ogeyn oo Liverpool gasho marka uu Mohamed Salah ka maqan yahay wararka kale aynan yahaynana waxa kamid noqon doona xogtii ugu dambeysay ee heshiiska milkiilayaasha Sacuudiga u dhashay ay kula wareegayaan naadiga Newcastle United waqtiga la filayo in lagu dhawaaqo Chelsea mise Man United Jordan Sancho oo mar kale qish weyn ka bixiyay kooxda uu qalbigiisa joogo ee uu ku socdo hordhaca kulanka adag ee Manchester City Burnley Guardiola oo ku qasbaya Liverpool inay damaashaad ku raago xogta kulanka shaxda macquulka ah ee labada dhinac wararkii ugu dambeeyay ee suuqa iibka ciyaartooyda ee maanta Isniin ah ay qoreen wargeysida Yurub aynu soo gudbin doonaa hadduu Baraale ka noqdo anigoo rashka ayaan ila soo codsiin doonaa Lionel Messi iyo Antonio Griezmann oo ku dhex dagaalamay tababarka Barcelona kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa lagu soo waramayaa in ay isku dhaceen xidigii xil ciyaareedkiisii koowaad kooxdaas ku qaadanayay ee Antonio Griezmann xilli ay ku jireen tababarka kooxdooda Griezmann ayaa ku fashilmay inuu ilaa haatan muujiyo sababta ay Barcelona 120 milyan oo euro ugu soo bixisay xagaagii 2019 markaas oo kaga soo biiray dhinaca Atletico de Madrid iyadoo ay haatan kooxaha reer Yurub ay qiimeynayaan xaaladda dhaqaale iyo halka ay joogto kadib jugta ay soo gaarsiiyeen xanuunka coronavirus waxa ay warar xan ah ay sheegayaan in Griezmann suuqa la dhigi karo oo Barcelona laga fasaxi karo xagaaga soo aadan kooxda Premier League ee Manchester United ayaa ahayd mid lala xiriirinayay ka hor ku biiristiisa Barcelona waxaana suuragal ah in ay soo celiyaan xiisahoodii kadib haddii ay Barcelona dib iskaga iibinayso xidiga Griezmann si kastaba shabakada reer Spain ee Diario Gol oo ah mid xogtani keentay ayaa sheegtay in Messi iyo Griezmann isku dhaceen intii uu tababarka socday balse aan la ogeyn waxa sababay inay isku dhacaan warbaahinta ayaa intaas ku daraya in tababarka kooxda ee Quique iyo Setién iyo ciyaartooyda kooxda qaar ay soo dhex kala galeen labada ciyaaryahan Antonio Griezmann iyo Lionel Messi waxa xusid mudan in hore loo soo wariyay in Messi iyo Griezmann hal mar kubadda aysan isku baasin inta uu socday kulankii ay dhawaan guusha ka gaareen kooxda Leganes iyadoo uu Griezmann noqon karo mid kooxda ka taga dhawaan taas oo bedelkeeda Lionel Andre Messi ay Barcelona kula jirto wada xaajood oo uu kordhinayso qandaraaska kooxda 2 sano oo kale oo dheeri ilaa iyo 2023 waxay VAR ka dhigeen aalad ay ku sharciyeystaan khiyaanada Real Madrid oo lagu daray inay musuqa ku xalaashato VAR kadib guushii xalay agaasimihii hore ee kooxda Barcelona Antonio Freakia ayaa weerar ku qaaday kooxda Real Madrid isagoo oo u maraya qalabka garsoora caawiyaha ee VAR kadib guushii ay xalay kooxdaasi ka gaadhay naadiga Real Sociedad Real ayaa 2 gool iyo gool kaga soo gaadhay naadiga Real Sociedad balse labada gool ay soo dhaliyeen ayaa ahaa kuwa muran hareeyay halka gool ay dhalisay kooxda martida loo ahaa la diiday iyadoo dhammaan go'aamadaas VAR loo adeegsaday maalmo kooban ka hor waxa sidoo kale lagu murmay gool laga diiday naadiga Valencia kulan ay la ciyaarayeen naadiga Real Madrid haddaba agaasimihii hore Antonio Freakia oo adeegsanaya bartiisa Twitter-ka ayaa ereyo xoogan ku ganay Los Blancos isagoo sheegay in qalabka loogu talagalay inuu caawiyo garsoorka uu adeegsanayo dhinaca musuqa lagu saameynayo iyaga Freakia ayaa Twitter-ka ku yiri isagoo Real ka xanuujinaya in Barcelona 11kii horyaal ee ugu dambeeyay 8 soo qaaday dhaawac intee la eg ayay saameeyeen in lagu guuleysto 8 horyaal 11 horyaal dhexdooda
iyagoo waxa ay VAR u bedeleen qalab loo adeegsado in lagu sharciyeeyo khiyaanada, ayuu intaas sii raaciyay Antonio Freakia. Jimmy Carragher oo shaaciyay walwal aanu dadka ogeyn Liverpool gasho marka uu Mohamed Salah ka maqan yahay. Liverpool ayaa ciyaartoyda Mohamed Salah oo kaydka fidiyay kulankii Everton ay barbaraha gool la'aanta ah la gashay Axadii, waxaana sababta ugu weyn ee loo nisbeynayo in ay ahayd mid la xiriira dhaawaca soo gaaray isbuuc ka hor. Andy Robertson ayaa isagu gebi ahaanba garoonka joogin, halka Salah uu ka ahaa bedel aan la isticmaalin oo xilli ay kooxdiisa u baahneed adeegii ciyaareed kursiga iskaga fadhiyay. Tababaraha kooxda Jurgen Klopp ayaa go'aansaday in aanu soo gelinin xidiga reer Masar si uu u baaqsado in dhaawacu ku sii xoogeysto, waxaana booskiisa buuxiyay Tokyo Minomanio oo ciyaartiisii ugu horeeyay ee Premier League ku soo bilowday inkasta oo si fiican u saldhig waayay oo la bedelay waqtigiisii nasashada. Halyeyga Liverpool ee Jamie Carragher ayaa inta ciyaartu socotay waxa uu tilmaamayay sida ay tahay Liverpool marka uu Mohamed Salah ka maqan yahay iyo saddexdii ciyaartooy ee laga adkaaday xilli ciyaareedkii oo laba ka mid ah uu Mohamed Salah ka maqnaa. Bilowgii xilli ciyaareedkii ayaynu soo aragnay sida ay Liverpool u tabtay Salah kulankii Old Trafford oo aanu ciyaarnay, ayuu yiri Jimmy Carragher. Dhinaca goolasha way cad yihiin goolashiisa, waana dhaliyo weyn, aad ayaana loo tabaa markasta oo aanu kooxdu jirin, ayuu ka daray. Halyeyga hore ee Reds difaaca ugu ciyaari jiray waxa kale oo uu sheegay in marka uu maqan yahay mid ka mid ah saddexda afka hore ee Liverpool ay dhibaato gasho kooxdu, waxaana uu yiri dhageyso, saddexda afka hore waynu ognahay inay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee Yurub, laakiin markasta oo midkooda uu maqan yahay waxaa jira hoos dhac weyn, ayuu yiri xidigii hore ee legend Jamie Carragher. Ciyaartooy ka tirsan Arsenal oo laga helay fayraska corona ka hor kulankii Manchester City, walaaca ay xidigaha Gunners kula ciyaareen naadiga City kulankaas. Ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa laga baadhay fayraska corona ka hor inta aanan bilaabin ciyaartii ay Manchester City ka hor tageen Arbacadii, waxaana taasi saameyn ku yeelatay diyaar garowgooda kulanka. Macalinka kooxda Mikel Arteta ayaa kooxdiisa Arbacadii ku laabtay Etihad Stadium markii uu horeysay tan iyo markii uu ka tagay halkaas bishii December, waxaana lagu soo xambaariyay guul daro 3-0. bilowgii ciyaartaba waxaa Arsenal laga saaray laba ciyaartooy oo dhaawac ah, waxaana ay kala ahaayeen Mari iyo Granit Xhaka. hase yeeshee David Luiz oo bedel ku soo galay ayaa kooxda dhabarka ka jibiyay markii uu saameyn qaladka lagaga dhaliyay labada gool ee hore, kadibna uu casaan qaatay. sida uu sheegay David Ornstein oo ah wariye ka tirsan wargeyska The Athletic, mid ka mid ah ciyaartooyda Arsenal ayaa laga helay caabuqa Covid dhamaadkii isbuucaas xilli ay isku diyaarinayeen kulanka Manchester City, waxaana la geliyay xidigaas go'doomin 7 maalmood ah. ciyaartooyda kale ayaa wariyuhu sheegay in si caadi ah ay u macaamili jireen laacibkan ka hor inta aanan laga helin xanuunkani, waxaana taasi keentay walaac dhinaca badqabkooda oo haysatay inta aanan City safarku ugu tagin. warku waxa uu intaas ku darayaa in dhammaan ciyaartooyda kooxda lagu sameeyay baaritaan ka hor ciyaartii Manchester City si loo hubiyo taam ahaanshahooda caafimaad, laakiin dhammaantooda waa laga waayay caabuqa. inkasta oo aan la shaacinin magaca ciyaartooyda caabuqa laga helay, haddana waxaa la ogaa in xidiga Arsenal ee Mesut Ozil aanu lagu soo darin liiska ciyaartooyda naadiga ee kulankaas ka qayb gashay, laakiin waxa ay warar kale xuseen in 3 ciyaartooy oo laga shakisanaa ay ka qayb ahaayeen safarka, balse ay baaritaan ugu dambeyn ay ku sameysay naadiga badqab oo lagu waayay xanuunkaas iyadoo aanan laga helin xanuunka cudurka caabuqa coronavirus ee dunida hafeeyay. markani waxaaynu guud mari doonaa horyaalada sida loo kala hogaamin doono 3 horyaal ee ugu waaweyn qaaradda Yurub. haddii aynu markani ku bilaabno Serie A waxaa hogaaminaysa naadiga Juventus 63 dhibcood ayay kuga hogaaminaysaa naadiga Lazio. booska labaad Lazio ayaa ku jirta 62 dhibcood
ayay ugu jirtaa halka Juventus hal dhibac ay kaga koreyso naadiga Lazio. Inter Milan ayaa saddexaad ku jirta waxa ay soo ordeysaa 57 dhibcood. Atalanta kaalinta afraad 11 dhibcood. Roma 45 dhibcood ayay soo gurguurinaysaa. AS Napoli 39 dhibcood. Verona sidoo kale 38 dhibcood kaalinta toddobaad ayay ku jirtaa. Sideedaad waxaa isku soo cariirinaya sagaalaad Parma oo 36 dhibcood leh halka 36 waxaa la leh naadiga AC Milan. haddii aynu markaan fiirino horyaalka Premier League sida loo kala hogaaminayo waxaynu soo fiirinay 10 ugu sareeya horyaalka Talyaaniga. markaan Premier League Liverpool 83 dhibcood kaalinta koowaad. kaalinta labaad waxaa ku jira Manchester City 60 dhibcood halka kaalinta saddexaad ay soo ordeyso naadiga Leicester 54 dhibcood ayay leedahay. kaalinta afraad waxaa soo gashay Chelsea oo xalay soo xasuuqday naadiga Aston Villa 51 dhibcood ayay leedahay. kaalinta shanaad waxaa ku jirta naadiga Manchester United oo 46 dhibcood leh halka Wolverhampton ay 46 dhibcood ay leedahay naadiga Manchester United. Sheffield ayaa kaalinta toddobaad ku jirta oo 44 dhibcood leh. Tottenham 42 dhibcood ayay leedahay. kaalinta sideedaad ayay soo gurguurinaysaa halka Crystal Palace ay isla dhibcaas la leedahay naadiga Tottenham 42 dhibcood naadiga Crystal Palace halka naadiga guul darada xanuunka leh soo wajahday ee uu saameeyay dhaawaca naadiga The Gunners 40 dhibcood ayay kaga jirtaa kaalinta 10. waa anigoo saaxiibkiin Cabdirashiid Axmed Xuseen Cabdirashiid Rashka iyo bahda galka ciyaaraha oo niila sida iyo nabadgelyo.